xaqiiqatan markaad jaamacadda ka soo baxdo meesha aa hadda maraysiin waa soo maray jidkii aan rabaa marka inaan idin tilmaamo waxaa meeshaan usoo istaagna waxaa waa inaan idin dhiiragelina macnaha trainingkaygii iigu horreeyey oo hal bil ahaa ayaa bangi isiiyey macnaha laakiin nin bajular iska wataan ahay oo wax soo bartay trainingkii ugu horreeyey marka la isiiyey waxaan ogaaday su-aalo badan oo igu taagnaa bangi markaan hormarayo waxaan dhahay warda gurigan weydinka badanoo dadka sii galayaan oo ka soo baxayaanoo maanta dhan lacagaa lasoo dhigay lacagaa laga soo qaaday waxbaa socda ruuxaansay u socdaan nin iska dhalinyaro da-yarna waa ahaa almost waxaan ka hadlaa 20 years later yani adinka waxaa laga yaabaa qaarkiin xilligaas inaadan secondaryga xataa bilaabin ama dugsiyada wax badanaan ka faa'iiday nin odayaa lii ag fariisiyey wuxuu sameeyaa la yidhi maalintii koowaad markuu wixii sameeyey maalintii labaad anaa sameynayay qayb kalea la ii gudbiyey all department iska dhanaa liigu wareejiyey bishaas markay dhammaatay ayaa ilaahay kuuma darnaadeen niman odayaal oo raba inay bangi furaan salaam bank oo jabuuti ayaa markaa muxuu ahaa meesha yimaadeen imtixaankii ugu horreeya laiga qaaday ardaygii koowaad aan noqday wax kale ma ahayn ayaguna waxay raadinayeen arday oo shaqo la siiyo anigana waxaan ahaa markaasaaba traininka ii soo dhammaadaba bangiga dhanba waa hayaba markii la i weydiiyeyba su-aasha meeqa department intaas waa su-aalaha i weydiinayaan si waxaan uga jawaabayay oo camali ah macnaha arrinkaas marka wuxuu idinka anfacaa hadda IT-ga waxaa laga yaabaa dhagaha iyo cilmi dhagoodka idinku badan boqolkiiba waxaan isleeyahay 70 inkastoo laptopkiina wax dhaafsiisan aysan jirin laakiin markaad dhex gasho servero iyo raagag iyo hebelkaa iyo fiilooyin tiro badan oo wada birqaayo oo meel ku wada dhegan aniga reer IT ma ahi laakiin dee intaan ka arkaa intaas ma fahanteen iyo departmentiyo kala duwan iyo screeno derbi ku rakiban oo laleeyahay waxay sameynayaan systemkay ay waardiye ka haayaan systemka waxaa laga soo joqeynayaa Kuuriya Nigeria iyo Mali bahalkii dhag accountkaagii qab adiga dhan waa lagu soo waa waxaa lagu leeyahay hawshan adiga miya haddaad tiraa wixii meesha saaba ay ku xirmayaanba automatic waxaasoo dhan marka waxaan ka wadaa waxyaabo u baahan waa inaad faa'iidaysataan oo aad aragtaan ka premier bangi ahaan ardada halkan fadhida waxaan idin siin doonaa internship inaad annagana aad faa'iidaysataan oo xarunta timaadaan oo training ku qaadataan gaar ahaan annagoo la soo xiriirayna annagoo xiriir lasoo sameynayna insha allahu tacaala walaalaha barnaamijka soo qaban qaabiyey dhammaanteen waxaan nahay shirkado Soomaaliyeed inaan iska kaashano horumarka dalka danta guud maxaa bulshadeena u dan ah AI-gii waa sii socdaaye rabood xataa waxaan arkayay habeen hore oo orod ka qayb galayo leeyahay sekonkii 12 iyo intaasoo orday oo bini aadamka oo dhanba ka orod badan meel waxaa la sii marayaa macnaha marka aan fiiriyo aan dhihi karo waa dib dhacsannahay boqolkiiba yacni 50 60 70 haddaanba dhihinba boqolkiiba 80 dadka marka oo shaqadaas qaban lahaa waxaan rabaa inaad serious u fahantaan dadka odayaasha ma ah qof oday ah 40 hadduu gaaro oo anigaan camal noqdo horta ookiyaala u baahanay koow mobilkaaba ku dhibaayaba fartaa weynaysanay settingkaa geliya waxaa leedahay foontiga haye ii ballaari maxaa la rabaa marka indhihiina ilaashada horta marka koowaad oo wixii la isaga ilaalin lahaa tiknolojiyadan aad la tacaamulaysiin iyo bal xirta habeenkiina xilli hore seexda mobilkan iyo waxaan iska yareeya innovation qof laga rabo inuu wax soo saaro iyo habeenkii waa dhafra ma soconayso subaxii haddii aad salaad subax intaad soo dukato aad horay hawshaada u geli weyso waa tii ninkii odaga ahaa maamulaha tabaarak oo idinkala hadluu yidhi waa lasoo daahaa iyo anigu waxaan qabaa haddaad soo daadaahaysid barnaamijkan si walaalnimaa lagugu soo xulay qof kaloo walaala laga soo tegay oo mudnaa haddii aad barnaamijka sidii la rabo uga faa'iidaysan karin maanta bilaa waa leeyahay naftaada qiimay dib isugu noqo
inaad naftaada aada macnaha aada u faa'iidayso wixii waxa meeshaan maanta lagu sameynaya waxaa waaye waane iyo wacyigelin iyo dhiirigelin iyo meesha wax u socdaan in la idin tuso oo berri shaqadii technicalkii faraha lala galaa la rabaa waanadan berri la isuma sheegayo maanta intaan lay ku eg tahay insha allahu tacaala marka waxba idinku dheereen maayo dardaaranka waa dhiman yahay dad iga mudan oo odayaala oo waalidiinaha jooga iyagaa wixii aan ka tegay ku dari doona waxaan idin leeyahay hawshaan dhalinyaroy ha la xoojiyo adduunka technology aaday problem walba oo jira maanta technology lagu xalinayaa for example yar hadda idin siiyo bangiyada wax kasta digital laga dhigay maanta qof u baahan inuu bangi aado ma jiro hadda lacagtaada kugu jirta bangiyada Soomaaliyeed oo dhan hadda la baxe hadda qof siinay hadda adoo inta fadhiya hadda ganacsado tahay $1 million China u diri kartaa now mobilkaaga ka direen Swift-gii iyo waxaa la isku xirayba iyo mobilkii iyo waxa la isku soo xiray computerkii hawlihii meesha sii marayaan yani adoo gurigaaga jooga shaqeynay adinkaaba IT ah qaarkiin waxa laga yaabaa inay mustaqbalka ay shirkado waaweyn ay muxuu ah oo dibadaha jira ay la shaqeeyaan dadkana la shaqeeya qaarkood ma bana la joogaanba dibadahaas ay jiraan system ay soo galaan wixii waa kala socdaan hawlihii waa la kala tuuraa programku waa shaqeynaya ahmiyadda marka fahma waxa waa global waay wax ma aha wadanka ku eg kaliya ma dadaala ayaan idin leeyahay intaasaa iga dardaarana hawshaas kalena waxaan kala soo xiriiri doonaa insha allahu tacaala tiimka barnaamij soo qaban qaabiyey oo tabaarag iyo muxuu ahaa salaam foundation salaam hormud foundation iyo walaalaheen Soomaali ren dhammaantiinna waxaan idin leeyahay ragga barnaamijkan soo qaban qaabiyey waa mahadsantihiin